ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj oo galkacyo maanta ku qabtay tababar ku saabsan sare oo qaadida xirfadda iyo anshaxa wariyaha. tababarku galkacyo kaliya kuma eka wuxuu si isku mid ah uga sii socon doonaa gobolada dalka oo dhan sida uu suxufiyiinta u ballan qaaday xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusoj Cumar Faaruq Cismaan. daafurka tababarka ayaa waxaa ka hadlay Awil Maxamuud Cabdi oo ah xogayaha abaabulka ee ururka iyo xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Nusoj Cumar Faaruq Cismaan. كده فرما أنه مسؤولين أوروبا سوفين تقرن السومالي المسج تبر مدة مع الموضوع الصعود ولا تبر كان نمتي وحلا صومري بدل أدفر بدل يعني تيسي بعد الجو كيسا وحنا أوروبا سوفين تقرن السومالي كتاجري أوروبا سوفين تقدم كAIFJ وحنا ربنا كان نجمع العليو بدل كسليرجا وحسمي أوروبا حبيسا حبيا أوروبا سوفين تقرن السومالي مفروع عثمان ورنتي دلال بدن أقلي توبر كاسي توبر بدن لها هذا توبر كم حاسويدين لما قال تعي كليه بكومية هاي موضوعي قال تعي كليه بكومنان دونا سؤال شاس وقت الوامي توبر كان مساعد دونا وتوبر كسر بلاد المجال من قدشوا هاتن جو المجال قال تعي من عيد موضوعي سعد دونا إلا قبل ذلك الصومالي أولاً runtii sharaf bay noo tahay maanta inaan tababarkan halkan aan ku abaabulno gaar ahaan ururka qaranka suxufiyiinta Soomaaliyeed ee Nusoj maalintii howlqabadkii noogala baahnay noola doortay waxaa ka mid ahay in la kordhiyo xirfadda iyo aqoonta ay suxufiyiintu ay leeyihiin waxaad ogtihiin in suxufiyiintu ay u badan yihiin daayan oo aan haysan aqoon kororsi oo ku shaqeeya xaalad adag oo u baahan in aasaaskii saxaafadda ay ku shaqeynaysay ee mihnadii saxaafadeed ah iyo anshaxii saxaafaddaba in xoogga loo saaro sidii aqoonta iyo wacyiga suxufiyiinta dalka oo dhan kor loogu qaadi lahay waxaan aad ugu faraxsanahay in haddii suxufiyiintu lagu eedi jiray oo la dhihi jiray been bay sheegaan dadkay ka been abuurtaan maanta in ururkoodii uu taagan yahay in xirfadoodii ay wanaajiyaan ay kordhiyaan maamulka gobolka iyo kan degmada Galkacyo ayaa kula dardaarmay saxafiyiinta in ay ka faa'iideystaan tababarkaasi. waxaan tababarkan kaligood macnaha wax tarmay ee u taraya dhamaan magaalada ama gobolka ama waddanka oo dhan buu wax tari doonaa insha Allah iyagana waxaan jecelahay inay u faa'iideystaan xogayaha ururka Nusoj waxaan leeyahay oo mahadcelinayaa su'aalaadkiisa iyo kaniistiisa oo mahadcelinaya horta marka ugu horeysa tababarka waa muhiim ka faa'iideysta sidii hadda ka hor rag iga horeeyay qaar u yiraahdeen waa muhiim waxbarashadana lama yaso waa la qaataa si fiican baa loo qaataa bari buu ku anfacaya hadda yastidoo ka tagtid casharkaas ma yoom min al-ayaam baa uu asagii ka hor imaanaya marka horta waa muhiim waqti baa ka lumaya waa timid maantana jaaniskii waa ku horyaal ka faa'iideysta horta wadamayn waxaa munaasabada daafurka tababarka ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta ee Puntland Mawlid Abukar gudoomiyaha ama xoghayaha guud ee ururka Soomaaliyeed ee Nusoj aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa inuu tababarkan keeno laakiin waxaan rajaynayaa inuu noqdo tababarkii ugu horeeyay laakiin uusan noqon tababarkii ugu dambeeyay waxaan ku boorinayaa waxa la inay baraya waa cilmi qof walba inuu awooda ama focuska saaro sidii waxa meesha laga bixinayo u baran lahaa wax badan baad wariseen macnaha dib baa dhacay dagaal baa dhacay problem laakiin waxaan rajaynayaa sanadkan iyo sanadada dambaba ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay nabad noo waariyo laakiin idinkana waxa la ka rabaa kaamiradiina iyo mikrofoonkiinu inuu qabto dhinaca san Abdul Jaamac Xasan Cagaaran telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Galkacyo.